عادلي أنت وضح حمر وبيجي كسر كتير دول كاسو خمسة باري وغار مري والولد على يحكي ولا جيت وكعيه يريد قيلة صوت بهيو ديان كانوا كسر يجيب منه أو كسر منه هذا حتى كشرا ولي وهايتا حكي تهتا ولي نوالو بحجرا أو الدين واحد الولد على ما يعرف الولد أو دي أسمع نهينه يعود كتبت ولا ولي الولد تعالى يا مركبال كاستاد وريتي ولا تدبت ولا أو يريد أن حمر رجيو بلا تسكيت منه هو كشرا أيه waayahay bulshada markaasi deegaanadaasi ku dhaqan maxay kula dagaalamayaan ama maxay sameynayaan si markaasi ayaxa ay uga kiciyaan dadkaas hadii wixii hadda nabadooda waxay ku dhacaan ficil wixii markaas ay qaban karaan bay qaban inay caadiba garaacaan inay ku qayliyaan in bilan lagu garaaco in maartay qaylo taas baan u bixinayaa wixii waa in xabado sida hadda anaga hoonka gaadiidka oo kale diir baabuur oo ka galayo adu shankartaas baa hadda lagu waxay lagu dagaalamayaa baalku lagu bixinayaa wax hadda wax loo qaban kara iyo wax hadda baalkaas shirkiga looga hortagi karana ma aha oo ma muuqato haddana waxaad moodaa in dhulkii kore oo luudaanka ah oo plastikii walaha inuu ku jiro dadka hadda wuu kululaaday waa la oomay xilli kulayla hadda lagu jiraa saacadan marka waxyaalahaas baa dadku kula tacaalayaan inta badan dalagyada iyo inuu laga badbaadin karo baa la isku dayayaa waayahay ayaxa hadda waxyaalada uu gaarsiiyey deegaanka wax ma noogu sheegi kartaa wallahi ayaxa waa la yaqaanaa oo ayax meel uu hal saac meesha uu fadhiyo waxyaalo xulus baa gaarayso wuu dhigay inta hadda uu maray oo laga kiciyey dibba waa laga dareemayaa aad baa looga dareemayaa dhulku markiiba dhulku qoyan oo aad u leeb uu ahaa waa la garanayaa raadkiisa waa muuqdaa si toos u daliiliyo intuu hadda ayaxu ku jiro bulshada deegaanadaasi degan wax caawinaad oo kaga yimid dadka kale ee degan deegaanada idin dhow ma jiraan dadka meelaha hadda ka sii dheer erigeedu weli wax laga soo gaaray ma jiraan waayo hadii xilliga uu baalku hadda nagu soo bilowday oo aragnay baa intii hadda waagi uu bariyey iyo hadda aan kula hadlaayo intaas buu ayaxu hadda ku sugan yahay eriginada meelaha hadda u dhow oo sida erigida dhowrkaha iyo webiga iyo tuulooyinkaas oo ilaa bay iyo geed weyne oo ayadana uu gurmad badan uu ka yimid oo taas uu hadda geed weyne joogaa waana rajeynaynaa in gurmad ka ballaaran inuu noo imaado waayo waxaan waa cadow waa waxa una masiibo alla keenay in marka laisugu soo gurmado oo maadaama hadda maanta uu ku sugan yahay geed weyne gurmad ballaaran la helana aad baan u rajeynaynaa insha allahu laakiin hadda gurmadka waa intii hadda uu soo gaari karo wixii hadda uu dhawaa baa hadda ula joogaa deegaanada ugu dambeeyay ee markaas aad kaga soo harteen qaybihii ugu horreeyay xaggee wey wuxuu hadda ku jiraa baalku boqolkan geed weyne ka koreeyo luumow sukeela baalboole beeley gobkaas hadda ku jira waxaa laga soo kiciyey tuulooyinkii beeraha hoose beegreebo hadaley dhaysiyow xamare ilaa beerihii webiga waa laga soo kiciyey dhulka kabxan tuulada kabxan buu aad ugu daahay oo meeshaasaa gurmad xoog yimid waa la kiciyey wadada dheer laamiga hadda xagga laga mariyey wixii laamiga ka horteeyey baan ka kicinay haddana wixii laamiga ka koreeyo daladka laamigu maraya maalmihii ugu dambeeyey waxaa la hadalhayey in deegaanka qooney ee markaas uu ku sugnaa ayaxan balse idinka ee dadka deegaanadaasi degan ma u diyaar garoobeen ayaxaas imaashaha uu deegaanadaas imaaday niyo waa loo diyaarsanaa dadku inay dareen ku diyaar garoobaan dareenkooda qabaan arkaan moogayaa wax hadda aalad iyo looga hortagi karo baalkan dadkeeda oo hadda dadka u diyaarsanaa ma jirin laakiin ficiliyan inay wixii ay qaban karaan iyo inta hadda ay dadaalayaan ay muujin karaan inta dadku warqabay aad baa lahaa waa la soo geliyey haddaba inta saaka la maray ama dadaal la maray ama dad badan laga badbaadiyey ilaahayda macadaas kale laakiin dadaalka la sameeyey haddaan adday jirin ama dadku uusan u diyaarsanayn lama qabteen marka dadka tiradooda way dadaalayaan guddoomiye hadda iminka baaqa aad diraysaan muxuu yahay marka baaqaan dirayo waxaa weeye baalkaas ayaxaan in si dhab ah lagu gurmado hay'adaha maamulada deegaanka daawo oo hadda uu ku jiro ama gobolka gedo in loo wada diyaargaroobo meesha uusan gaarin in loo diyaargaroobo baalkan uu socdaa waa ognay meesha uu ka yimid waqooyi buu ka yimid gobollada dhexe soo maray hadda annaguna maraya wuu socdaa waxaan leeyahay dadka uu ku socdo hadda uu ku jahaysan yahay inay u diyaargaroobeeno dadka hadda uu ku fadhiyana dadaalkaasi wadeenaan leeyahay baalkaas marka in qaab dawliha iyo qaab talaba loola diriro qaab deegaanba loola diriro taasaan ku baaqaya waayahay rajo ma ka qabtaan marka hadda inta idinla